weerarkii godka Jileecow ee dhacay 4 Oktoobar 2025 ayaa faahfaahin iyo macluumaad dheeriya laga helaya. Raggii soo qaaday waxa ku jiray sida la xaqiijiyay amaba la sheegay wiilka Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Cali Dheere waa Cabdiraxmaan. Waxa ay Al-Shabaab baahiyeen muuqaal documentary oo ku dhawaad hal saacad soconaya sida ay ku soo galeen, cidda u fududeysay, ragga ka qayb qaatay dalalka ay ka soo kala jeedaan iyo xog aan inaba caadi ahayn oo ay adag tahay inaad suuraysato. dhowr muuqaal oo hore oo aan halkan ku baahinay oo ay nagala qayb qaateen saraakiil iyo khubaro ciidan oo muuqaaladooda aan kula wadaagay waxay xaqiijinayeen in raggaasi ay wateen dharka lagu garto ciidanka nabad sugidda Soomaaliya gaari ay lahayd Neza. sidoo kale saraakiisha markaasi iyo laamaha ammaanka uu ka mid yahay taliye ku-xigeenkii hore ee Neza Cabdisalaam Xuseen Guuleed wuxuu xaqiijiyay in weerarkan uu ahaa mid abaabul. Al-Shabaab laftirkooda way xaqiijinayaan. waxaan ka dabageynayaa 52 daqiiqo oo aan soo koobayno nuxurkooda oo Al-Shabaab ay baahiyeen fariinta ay direen wiilka Cali Dheere ragga isqarxiya ayuu ku jiray oo dagaalkan qaybta ka qaatay. waxaadna arkaysaa muuqaal kooxda ay baahisay in Cali Dheere wiilkiisa uu laabta gelinayo oo uu leeyahay waan ku jeclahay aabe laakiin waxaan ka sii jeclahay jihaadka. ma riwaayad la jiray mise wax jira? saxafiyiin iyo siyaasiyiin ayaa isbarbar dhigay Cali Dheere iyo Xashi Maxamuud. waxay yiraahdeen madaxweynuhu wiilashiis iyo gabdhihiisuba waa la taliyaal, diblomaasiyiin iyo saraakiil. furimaha dagaalka iyo rasaasta iskuma dhigaan, laakiin argagixisada waxay fariin ku dirayaan ama dadka ku beer la xawsanayaan in carruurtooda ay ka qayb qaataan dagaalada dhacaya. haddaba ma weji kale ayaa loo yeelayaa mise Cali Dheere waa sax carruurtiisa waxay qayb ka qaateen dagaalka? xogtaas oo kooban ayaan rabaa inaan si kooban kula wadaago. saaxiib soo dhow haddii aad channel ku cusub tahay, shaqada kaliya aanu kaa doonin waa inaad muuqaalka like saarto, channelkan ku soo biirto, aad subscribe soo tiraahdo. geediga 100,000 ee subscribe ayaan fooda ku haynaa. waa mahadsan tahay. ciid wanaagsan saaxiib. waxaan ku bilaabayaa. waxaad ogeydeen inuu dhacay qarax aad u culus Oktoobar 4 2025 iyada oo Muqdisho 3 sano ku dhawaad ay ka caaganaayeen dadka dhagahooda qarax noocaas oo kale ah. qof walbaahi midka ka ag dhawaa goobtaas iyo sidoo kale qofkii ehelkiisa ahaa iyo khadka taleefanka isla markiiba ku wacay isagoo lahaa ma nabad qabta, jugta dhacday waa xagee. dareen ayaa bulshada Muqdisho ku abuurmay sanado kadib. qaraxaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo Al-Shabaab 4 saacadood ku dhawaad ay godka Jileecow ka dhex dagaalamayeen, waxayna furteen maxaabiis halkaas iyaga kaga jirtay walow qaarkood degmooyinka Shibis iyo Boondheere kolkii dambe laga qabtay. kooxda Al-Shabaab ayaa maanta baahisay muuqaal guud oo ku saabsan weerarkii ay hore uga qaaday xarunta godka Jileecow kaas oo dhacay 5 ilaa 4 Oktoobar 2025 isla markaana geystay khasaare iyo sidoo kale saameyn xoogan oo ka dhalatay weerarkaas maadaama lagu beegsaday mid ka mid ah xarumaha sida aadka ah loo ilaaliyo ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho aanan ka fogeynba madaxtooyada qaranka Soomaaliya. kooxda oo soo bandhigtay muuqaalka ragga fuliyay weerarka ayaa ahaa 8 nin oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib, waxaana ka mid ahaa wiil uu dhalay afhayeenka guud ee Al-Shabaab Sheekh Maxamuud Cali Raage aan raahday Sheekh Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Cali Dheere kaas oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere. sidoo kale waxay Al-Shabaab shaaciyeen magacyada iyo sawirrada 8 nin ee ka mid ahaa ama ay ka mid ahaayeenba ajaanib ka soo kala jira dalalka Itoobiya iyo Tanzania. waxayna kala yihiin: 1 Zakariya Cumar Saalax oo ka soo jeero degmada Diinsoor ee gobolka Bay sida Al-Shabaab ay ku faaneen; Cabdifitaax Bashiir Xaashi oo ka soo jeero degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya; Yaasiin Sheekh Xasan Maxamed oo ka soo jeero magaalada Buur Hakabe ee gobolka Bay; Maxamed Guye oo ku magac dheer Ibnu Yaasir kana soo jeero gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya. ninka shanaad waa Maxamuud Cabduqaadir Muriidi oo ka soo jeero magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Dhexe ama Jubbada Hoose. 6 ninka kale waa waa Yuusuf Shabcaan oo dhalasho ahaan ka soo jeero dalka Tanzania, halka Cabdullaahi Sheekh Aadan Maxamed Jacfar uu ka soo jeero degmada Rabdhuure. ninka 8aad waa Cabdiraxmaan Sheekh Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaano wiilka uu dhalay markaas Sheekh Cali Dheere, wuxuuna ka soo jeedaa degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, Muqdisho caasimadda Soomaaliya. muuqaalka oo soconaya ku dhawaad hal saac oo xiriir ah ayaa waxaa laga dhex arki karaa ragga weerarka fuliyey oo watay gaari cabdibila ah oo ay ku buufsan tahay astaanta hay-adda Nisa kaas oo ka gudbay dhammaan baraha kontarool ilaa uu ka gaaro gudaha xarunta godka Jileecow ee Nisa
degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaana horey muuqaalka gaarigan markaasi u baahiyay dowladda Soomaaliya maadaama ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV-da loo yaqaan. waxyaalaha la yaab kale ee ku jira muuqaalka waxaa ka mid ah in si toosa loo arkayay gaariga oo gelaya xarunta godka Jilacow kaas oo ay duubtay al-shabaab gaar ahaana ragga weerarka fuliyay ayaa muuqaal duubaya. waa waxyaalaha la yaab kale ee ku jira muuqaalkii maanta. waxaa si shaki la'aan ah ay u galeen xarunta ilaa ay ku tageen bartilmaameedkooda oo ahaa gudaha saldhigga godka Jilacow. al-shabaab waxay muuqaalka cusub ku sheegteen in weerarkaas ay ku soo furteen maxaabiis ugu yaraan goobta isla markaana 5 ka mid ah ay ka qayb qaateen howlgalka oo ay ku sheegeen in markaasi ay ku difaacayeen jihaadka sida ay hadalka u dhigtay argagixisada. dabcan markii la galay halkaas ee maxaabiistii la soo furtay 5 nin oo maxaabiista ka mid ah ayaa yiri waanu jihaadayna. waa waxyaalaha buunbuuninta iyo ka badbadinta u sameynaya muuqaalka argagixisada maanta ay baahisay. sidoo kale waxay sheegashadoodu intaas ku dartay in weerarka ay ku dileen 42 sarkaal oo ka tirsanaa sirdoonka ayna dhaawaceen in ka badan 20 kale sida al-shabaab ay ku faaneen. mase jirto xaqiijin ka madax bannaan sheegashadooda. marka uu markaasi gaariga ka gudbayay kontaroolka ugu dambeeya ee godka Jilacow waxaa la maqlayaa ninka hogaaminaya weerarka oo leh Allahu Akbar waan soo galnay, isaga oo gaariga joojiyey kadibna ku amray ragga saaran in ay degaan. wax yar kadibna waa gaarigii waa uu dhaqaaqay godka ayuu si toos u galay wuuna isqarxiyay. sidaasoo kale weerarka sidaas ayuu si toos dabcan ugu bilowday. ragga hubeysan iyo ciidamada ammaanka ayaan isfara saaray oo gudaha ayayna galeen waxayna dagaalamayeen saacado aad u badan. waxaa kale oo argagixisada al-shabaab muuqaalkan ku soo bandhigeen wareysyo laga qaaday ragga weerarka fuliyay oo ka warbixinaya iyaga oo markaasi uu socdo howlgalka oo saacado qaatay isla markaana guul ka sheeganaya ragga gudaha ku jira. si kastaba kooxda ayaa muuqaalkan si weyn ugu baahisay barahooda iyagu taageero ee markaasi internetka wuxuuna ku soo baxay luqadaha Carabiga, af Soomaali iyo Sawaaxili iyaga oo howlgalkan ay ugu magac dareen u gargaaridda kuwa dulman. waxa xiisaha gaarka u yeelayay ayaa ah sheekada lagu tilmaamay inay tahay midka raqiiska ee uu ku jiro afayeenka Maleeshiya al-shabaab Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Cali Dheere. wiilkiisa Cabdiraxmaan ayaa dabcan ku jira. wuxuu leeyahay wiilkaygu waan jeclahay weliba dhulka duurka ay maamulaan ayuu laabta ku gelinaya oo uu u sheegaya inuu jecel yahay laakiin uu doonayo inuu janno helo wiilkiisa. sheekadan waxaa lagu tilmaamay inay tahay wax mala awaal ah iyo ruwaayad la iska sameeyay sababtoo ah Cali Dheere inuu dhalay wiilkan maxaa cadeynaya ayaa dabcan la isweydiinaya. Cabdiraxmaan Cali Maxamuud Raage in la yiraahdo oo adigu dhashay maxaa cadeynaya baa leeyahay. waxayna u muuqataa sheeko buunbuurina. muuqaalkaas 52 daqiiqo wax ka badan soconaya. al-shabaab fariinta ay rabeen inay ku gudbiyaan waxay ahayd fariin markaasi guraacan ayaa la yiri. horey saraakiil ka tirsan ammaanka gaar ahaan raggii hore kaga soo shaqeeyay sirdoonka oo taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda qaranka Cabdisalaan Xuseen Guuleed uu ka mid yahay waxa uu sheegay in al-shabaab weerarkaas ay u diyaariyeen qaab aan horey loo arag garabna ay ku siiyeen saraakiil dowladeed oo nizaba ka tirsan. Cabdisalaan Xuseen Guuleed eedda ugu weyn wuxuu saaray taliyaha nizab Mahad Maxamed Salaad oo ku eedeeyay in markaasi saraakiisha uu hawsha u igmaday ay ka gaabiyeen macalle isaga xitaa wuu eedeeyay dabcan laakiin eediisu wax cadeyna uma hayno annaga. sidoo kale al-shabaab yaa u sahlay inay helaan dharka nabad sugiddu leedahay sababtoo ah aniga iyo adiga iyo dadka la midka ahba ma heli karaan dhar ay leeyihiin ciidan sirdoon. sidoo kale ma heli kartid gaadiid ku buufsan kan nabad sugidda oo weliba taargal la aqoonsay oo number 7 iska leh. gaariga number 7 waxaa la sheegay bil ku dhawaad inuu ku jiray geerish oo ay cilad haysatay. xitaa waxaa leeyahay qolada geerish ku haysa muddo intaas la gaariga inuu ciladaysan yahay sheegaysay weerarkan waxbay ka ogaayeen oo waxay diyaar u ahaayeen in al-shabaab weerarkan ay geystaan. muuqaalka CCTV-da ee dowladdu hore u baahisay al-shabaabna maanta ay baahiyeen wuxuu muujinayaa gaariga inuu ka soo galayo X Control Afgooy waqooyiga Muqdisho uu soo marayo wadada dheer ee markaasi Saypiano ee uu ku imaanayo Zobe soo marayo wadada dheer ee mashquulka badan ee markaasi kilometer 4 ama lambar 4 loo yaqaan dhanka degmada Xamarweyne ayuu gaariga si toos ugu soo soconaya isaga oo soo maraya halka markaasi la yiraahdo Evasione. wuxuu soo kale soo hormaraya dekada weyn ee magaalada Muqdisho wuxuu damcaya inuu madaxtooyo ka galo dhanka Ceelgaabta. Zamxad iyo mashquul badan ayaa ka jirto isaga laabanaya wuxuuna soo maraya dhinaca beerta nabadda isaga oo jiirada markaasi la yiraahdo Shabeelle soo marayo daljirka daahsoon
xaruntii ugu horreysay ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu godka jilicu ka soo galaya ciidanka ugu horeeya way eegayaan way isa salaamayaan way soo gudbayaan birta laga qaaday way takbirsanayaan waxay leeyihiin waan ka soo gudubnay halkii ugu horreysay waxay soo gaarayaan halka ugu dambaysa ee godka laga ilaaliyo way ka gudbayaan gudaha markii ay ku dhawaadaan ayuu hagihii iyo ninkii argagixisada gaariga saareed ugu sarreys ku amraya in ay degaan isaga oo dhahaya Allahu akbar waan soo galnay kadib gaarigii guduhu galaya oo qarxaya toddobadii nin oo lugaynaysa ayaa dagaalamay wiilka Cali Dheerana waxa la xaqiijiyay markaas ama Cali Dheeraba afkiisa uu ku sheegtay markaas in uu isagu qayb ka ahaa weerarkaas iyo qaabkii uu dhacay waxa noo sharaxaya markaasna ka sheekeynaya xogta uu helay taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda qaranka Cabdisalaan Xuseen Guleed bal ila arag waxa uu qabo weerarkii dhawaan al-shabaab ku qaadeen xarunta hay'adda nabad sugidda gobolka Banaadir godka Jilicu waxaan uga hadli doonaa maxaa laga qariyay maxaase laga qariyay maxaadan ogeyn oo tahay inaad ogaatid weerarka yaa soo qaaday barnaamijkan ayaad uga bogan doontaa xogo dheeraada iyo xaalku sida uu yahay waxaad la socotiin in hay'adda nabad sugidda gaarigeeda la isticmaalay waxaad la socotiin inaan ilaa hadda meydadkii la soo bandhigin wixii la dilay inkastoo dowladdu sheegtay inay soo afjareen waxay ahayd 4 bisha Oktoobar ee lagu jiro markii weerar ay ku soo qaadeen al-shabaab xarunta gobolka Banaadir hay'adda nabad sugidda godka Jilicu waqti galaba sida baraha bulshada ku aragteenba waxaa weerarka soo qaaday dowladdu waxay sheegtay 7 mid kas qarxiye ku jiro laakiin xogtaan hayna waa 8 nin shirka ku jiray gadaale oo sheegtay inuu madax yahay darawalkii waday iyo rag iska dhigay waardiyo oo baabuurka qaybta gadaal ka saaray baabuurka dabcan godka Jilicu dadka yaqaano wuxuu leeyahay dhowr meelood oo lagu baaro inta godka Jilicu soo gaaray midda koobaad uu ka soo gudbay talabaad waa uu ka soo gudbay midda saddexaad sida xogta ku hayo ayaa lagu joojiyay oo lagu yiri warniyahow meeshan ma dhaafaysid ciidanku baaruka ka degeen aduguna dad waco maadaama aan ku aqoonay laakiin birtu way jilacsanay sida la ii sheegay adiga meeshaasi uga degeen qoladii al-shabaab dabcan ma warrin inay sii gudbaan sababtoo ah qaraxa ayaa ayagas waxyeelay doona haddii ay meeshaas ka dhaafaan baabuurka xoog meesha ku galay ganjeelkii isku qarxiyay xogahaas waa inta aad ka hesheen baraha bulshada ama dad badan oo maaragtay arrimaha social media aad uga hadla ay soo qaateen maxaa in ka qarsoon marka waxaan uga baranay hay'adda dowladda Soomaaliya markii ay soo afjarto dhagarqabayaasha weerarka soo qaaday in ay soo bandhigto meydadka dadkii wax geystay hadday noqoto furimaha hore dagaalka iyo hadday noqoto meelaha goobahan oo kale oo shabaab weerar ku soo qaadeen ma aysan dhicin oo meydadkiina lama tusin sababtu maxay tahay looma baahna inaan meydka la arko looma baahna muhiim ma ahan waa loo arkaa meydka maxaa sababaya yani arrimahaas waa ka gudubta dowladda Soomaaliya okay that's crap that's absolutely sax ma ahan qalad weeyaan ma dowladda Soomaaliya kama gudbin inay meyd soo bandhigto laakiin waxa jira in sheegaya meydka leen kaga qari meydka waxa leen kaga qariyay dadka weerarka soo qaaday inta la hubo 5 ilaa 6 la hubo waxay kamid ahaayeen duufaan hay'adda nabad sugidda waxay ahaayeen isu soo dhiibayaal al-shabaab ka yimid oo taliyaha nabad sugidda Mahad Salaad oo dhawaan xalasaniinta ama meesha dhaqan celinta ka soo bixiyay oo ku dhagan aad ugu dhow oo ka soo bixiyay kuna daray ciidanka duufaan ciidankaas shabaabka ee lagu daray ma aysan ahayn dad vetin lagu sameeyay ama baaritaan dheer lagu sameeyay ama la xaqiijiyay inaysan qatar ku ahayn naftooda iyo dadka taliyaha ayaa go'aankaas gaaray sababtay u gaareen lama yaqaan okay haddii meydadkii la soo bandhigo nimankii ay ka soo tageen oo la dagaalka kula jireen oo ciidanka ay isla ahaayeen oo maartay hay'adda nisa ka wada tirsanaayeen way aqoonsanayaan isla markiina dadka waxay la wadaagi doonaan oo u sheegi doonaan saaxiibadood faamilkooda ku sir qasan doonaan war ninka meesha lagu dilay hebel oo ahay anigoo ciidankii ka tirsanaay ururkaygu ka mid ahay maartay unugteedu ka mid ahay hurinteedu ka mid ah dowladdu ma ogola taas dabcan saxna ma baahanba waa dhib badan tahay
si taasay soo dhicin meydkii waa la qariyay maxaa loogu sheekay doonaa ciidanka saaxiibadood ay dhinteen ama la waayey dabcan wax kale loogu sheegi doonaa shaqadii uu ka tegey waa ruqsaystay waa la xiray shaqadii laga ceyriyey fariimahan iyo jawaabahan ayaa la sii doonaa ciidamadii ay la shaqaynayeen markay waayaan saaxiibadood ciidankan mar dhow markii hadda taliyuhu soo laabtay ayuu ka qaaday ayuu ka soocay ayuu ka waday meeshii dhaqan celinta ay ku jireen okay baabuurka la isticmaala muxuu ahay baabuurka la isticmaala wuxuu ahay baabuur shabaab lahaayeen laakiin ay ku soo buufiyeen magaca hay'adda rinjiga hay'adda astaanta waa hay'adda nabad sugidda maxaa kale waxaa jiray baabuur geerash ku jiray oo hay'adda nabad sugidda gaadiidkeedu waa nambarsan yahay si loo oqoonsado number uu leeyahay aan taargada ahayn numberkaas ayaguna waa isku oqoonsadaan system ahaanna waa lagu oqoonsadaa numberkii baabuurkii watay number 7 baabuur geerish ku jiray oo halleysnaay oo geerishka hay'adda ku jiray oo la sameynay numberkiisa ayuu watay baabuurkaani number 7 ayuu ku soo gudbay dabcan hay'adda ID-geedana waa watay hay'adda ID-geeda waa la heli karaa laakiin muhiimaddu waxay tahay siduu ku ogaaday number 7 baabuurka ah 7 inuu geerish ku jiro waxaa kaloo iyadana muhiima geerishka baabuurka ku jiray imisuu ku jiray wada shaqaynta ka dhaxaysa nimanka geerishka gaadiidka nimanka haya oo baabuurkan number 7 og meesha uu yaallo iyo al-shabaab xiriirka ka dhaxay sidee ku ogaan karaan shabaab inuu baabuurkan meesha yaallo number 7 oo geerish ku jiro dabcan hay'adda la shaqaysay hala shaqaysa ma xumee qorshaha dagaalka weerarka ay soo qaadeen waxaan ognahay inuusan 2 maalmood iyo 3 maalmood go'aan lagu gaaro maaha waa wax maalmo qaata asbuuciyo qaata bil qaata ama 2 bilood qaata in qorshe intaas la eg ciidan niman intaas la ogo isqarxinaya la soo diyaariyo nimankan midba meel laga keenaa markii la soo diyaarinayo la soo tashkiiliyey laga dhaadhacsiiyey baabuurkii iyo gaadiidkii qaraxii lagu soo raray waxaasoo dhan in la soo saaro waxa weeyaan waa wax u baahan hawl iyo shaqo ma aha wax fudud baabuurka marka halleysnaay oo geerishka ku jiray oo intaasoo maalmood sugayay in numberkiisa la isticmaalo lafteeda waxa weeyaan waxay qorshahu qayb ka ahay laana baabuurku wuxuu sida muuqata number 7 inay soo isticmaalaan waa inay ogaayeen number 7 inuu geerish ku jiro bil ka badan geerishkana baabuurkaas lagu hayay muddo bil ka badan si numberkiisa loo isticmaalo san hawl oo master active noqon howlgeli isku xirka marka intaas la eg oo ah baabuurkii in la isticmaalo numberkiisa baabuurkii numberka la geerish lagu hayo la soo buufiyey ciidankii hay'addu ay lahayd la soo saaro hubkii hay'addu ay lahaydna saan aaminsanahay iyo uniformkii hay'addana soo qaatay iyo maaragtay iyo ID-goodii ma aha wax wili yaroo shabaab ay ka shaqayn karaan ma aha wax dhowr qofood oo shabaab ay maaragtay go'aan ka gaari karaan waa wax ka weyn oo organized ah oo shaqo weyn oo maaragtay la dhihi karo waa laga soo wada shaqeeyey dad waaweyn ayaana ka shaqeeyey waxaa kaloo iyadana xusid mudan ciidankii meesha galay waxay aad xodogaal ugu ahaayeen meesha wax kala jiraan markay soo degeen automatically waxay aadeen meesha ay ku jiraan isi soo dhiibayaasha dadka la yiraahdo defectoriska iyo meesha hubku ku jiray xaafiiski obviously dad qodxod ogaalah ayaa hagay dowladda Soomaaliya maxay sameysay marka waxay xirtay 2 wiil oo kuwa waardiyaha meesha ka mid ah waran AT-da kuwa yani qaybta waardiyeysa ay xirtay waa loo xiraa ninkan uniform oo qaba shirkii oo saraakiisha hay'adda nabad sugidda ka dhici jiray maalintaas meesha baabuurka hay'adda wataa taliyaha wuxuu sheegtay inuu garasbaan leeyahay ceelasha biyaha kino wax reasonable maxay tahay sababta loo xiraa su'aalaha marka la isweydiinaya waxay tahay maxay tahay sababta oo taliyaha nabad sugiddu ciidan
al-shabaab aan la baarin al-shabaab aan la xaqiijin oo cadadkooda u tiro badan yahay intaas la eg oo ugu dhex daray ciidamada nabad sugidda ee amniga sugaya qaranka waxaa kaloo iyadana muhiima oo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay muhiim ugu tahay inay ogaadaan in